mararka qaar erey keliya ayaa qof dhaawici kara, laakiin qofka guuleysta waa kan xanuunka u beddela dadaal. Tani waa sheekadii wiil aabihii ku yidhi waxba ma noqon doontid. Aabuhu mar walba wuxuu ku celcelin jiray wiilkiisa inuusan waxba noqon doonin. Wiilkii ma doodin, mana xanaaqin. Halkii uu hadal ku lumi lahaa, wuxuu go'aansaday inuu wax barto, shaqaysto, oo riyadiisa raaco. Sanado badan oo dadaal iyo samir ah kadib, wuxuu noqday ganacsade guuleystay. Maalin ayuu aabihii hor fadhiistay, isaga oo furo gaarigiisa cusub miiska saaray. Markii aabihii weydiiyay inuu ka xanaaqay in kale, wiilku wuxuu ku jawaabay, "Maya aabbe, waxaan doortay inaan ficil ku jawaabo ee aan hadal ku jawaabin. Ha u oggolaan hadalka dadka inay ku joojiyaan. Guusha ugu weyn waa inaad ficilkaaga ku cabbirto qiimahaaga."